كسو وريكتي آساسكي حزبي SYL حزبي SYL كهر سومالدو وحي أهي قبائلو يرير أمير سكو جوغا وصلاتيني وحالي قميستياشي نقميساني وإنجليز في إطريانيكا وحي لما عامل تبجرين قبائلها أسكرتا شمالها حدو البقر قرنيان مقع قبيل بيكو برجرين سي تفرارق الصومالي لماذا أبناتو ويناتو وحان شرف إيه أمانتا إنان بصو سدح يتوقع لنيرو وأن هايب قبيل اسكو راعي إني إسو استاغين إني دونان صومالي نمو ما نيتون رقمها إن صومالي لسنا دونو إن قبائل كلا دغالمو قبائل لغا غورو iyo in jahliga lala dagaalamo oo dadkii wax la baro waxaan rabaa 13 kaas dhalinyaro waxay ku tiirsanaayeen bulshada Soomaaliyeed iyagoo kuwa maanta jooga ka faqiirsana iyagoo kuwa maanta jooga ka aqoon yara iyagoo kuwa maanta jooga fursadaha aaladaha ay haystaan sida internetka mobile phone-ka internetka Facebook iyo waxaas social media aanan haysanin ku guuleystay inay gaaraan meel walba oo ay Soomaali ku nooshahay waxaan rabaa inaan xuso dhowr qiso oo sheekooyin muhiim ah dhaqdhaqaaqii gobonnimadoonka ee SYL waxaa jirtay dhowr dhacdo oo muhiim ah dhacdadii ha noolaato dhacdadii dhagaxtuur dhacdadii ay ku dhimatay Allah u naxariistay xawataako waxaan u xusayaa waxay ahayd elite figure wakiilka ah dumarka maanta sababtoo ah dumarkii berigaa joogay muriyooyinkoodii bay u iibin jireen si loo helo xornimo gumaysiga looga baxo ma aanay guursan jirin gabdhahaas nin dabadhilif ah nin SYL aan ahayn ma aanay shukaasan jirin oo lama asaawi jirin balse horta intaa leegeey waxaan ku xusayaa intaas gabdhaha maanta waxaa laga rabaa ninkaad ku aragtaan ownershipka ama lahaanshaha waddanka haddii ay qaali ku ahayn oo markuu kula haasawa ay ku yidhahay iyaa tahay heedha uu ku yidhaahdo albaabku waa furan yahay hidda rood ku dhah hidda rood waxaan rabaa marka dhowr qiso yar inaan halkan ka xuso waqtiga oo aad u kooban awgeed waxaa jirtay SYL hadda ka hor in dagaal uu ka dhacay meel la yidhaahdo ceelkarre oo ku taallo nagay laagta ee dhulkaas Soomaalida degta Ethiopia ceelkarre markii laba qabiil baa isku laayay SYL oo Muqdisho joogta ayaa waxay u direen nin la yidhaahdo Maxamed Saalax Wadani taariikhan soo guray Maxamed Saalax Wadani Allah u naxariistay halkan ayuu ka baxay safar dheer oo aan transport fiican jirin oo dameero iyo la isticmaalayo kadib meeshii uu ku tagay waxaan qisadaa u xusayaa nagayle oo sidaama ku taalla iyadoo transport ay diyaarad jirin Soomaalida Muqdisho joogtay inta ka xanuunsatay baxday inay dhiigga soo joojiyaan maantana maxay ahayd kaasa populaare bakaaraha burdhigley meel walba ay dadkii ku laganayaan iska daaya meelaha kale baan inta dabqataa jira balаарka dhibaatada maanta meesha jirta heerka Soomaalinimada iyo dhiigga Soomaalida sharafta u lahaa marka waxaa jirtay marka in qabaa'ilka lala dagaalami jiray nin in gumaystihii intuu xiray rag Soomaaliyeed iyadoo la garaacayo nin ka mid ah dadkii xiraa oo aad loo ciqaabay habeenkii dhan jubta lagu hayo la leeyahay war sheeg qabiilkaaga gumaystii uu leeyahay uu yidhi caawa keliya abgaad berri laakiin Soomaali baa la xanuunkii baa ka batay marka wuxuu u xusayaa inuu tagaaniga u sheego yidhaahdo aniga Soomaali baan ahay marka taa baan idin sheegay waxyaabaha kale oo muhiimka waxay ahayd dadkii dhallinyaradaasi lacag bay u ururin jireen mar baa jirtay oo Allah u naxariistay Cabdullaahi Ciise la rabay inuu UN inoo tago Cabdullaahi Ciise Maxamuud sidoo UN noo tago ayaa la waayay wax uu sahay safar ka dhigto ilaa meeshani markaa dawladdu wax la weydiiyay ma jirin waa la isku tashanayay marka guddi baa la saaray 3 nin oo ayaa la diray intaan ka xasuusto
nin la yiraahdo Sheekh Maxamuud Maalin Guur oo loo diray Baaye Bakool iyo Gedo nin la yiraahdo Sheekh Cali Jimcaale oo loo diray Hiiraan iyo ninka Daayaan Xuseen la yiraahdo Maxamed Saalax Ladane oo loo diray asagana gobolada bari marka qisooyin muhiim ah meeshaasi yaan idinkaga hayaa bari markuu tegay Maxamed Saalax Ladane Allah u naxariistay wuxuu tegay meel shirkad Talyaani ay beeyada ka dhoofiso ka suubsato oo ku gurto markaas uu tegay ninkii madaxda ka ahaa oo uu yiri lacag baan rabnaa oo aan uunada ku tagno shaqaalaha lacag keeno shaqaalihii meesha joogay nin walba mishaarkiisa barkii buu bixiyay si uu ugu tabarruco inuusan weligii arkin adigu weligiisa waxaa kaloo arrin kala jirtay Sheekh Maxamuud Maalin Guur ayaa shufta ku heshay isagoo sanduuq ay lacag ka buuxdo oo SIL wada shuftada markii ay heshay bal arrintaas si fiican u dhuxa shuftada markii ay heshay dadkii lacagta ka qaateen baa sanduuqii la furay markii tuugadii burcadii ay fureen ayay waxay ku dhex arkeen caalamkii SIL markaasay weydiiyeen inay lacagtani waa maxay markaas wuxuu ku yiri lacagtani waxa iska leh SIL baa iska leh ay qadiidad baa ku doonaya tuugadii way iska daayeen lacagtii markaasuu Allah u naxariistay Sheekh Maxamuud Maalin Guur wuxuu yiri anigu lacagta aad u soo celin weydaan nimanka aad ka dhacdeen maxay rakaabka lacagtan SIL baa siinaya tuugada intay isku laabteen way lacagtii u soo celiyeen dadku marka taasna waxay na tusaysaa qiso kale oo Soomaalidu xataa ninka Ilaahay subxaanahu wa tacaala يعني كعاسيو قاطع طريق حتى الصومال لماذا يقولوا يعني كوه يا ما أنت هنكين إنه بقى ما أنت إليه من ذان اللونتي ما أنت يهمك عن تاكله ليد كأن ما أنت تقول هذا كل شيء مل عن ما أنت الصومالي جوكتو يرجع نجس بورس نجا أقوى يرأيك إيجاري بلينا ما تقول هذا شيء وعقل الربائنا الحصو بركي عبد الله عيسى محمود ليري مركز داي ودومي أكر كويك حسين oo la yiri inta tagaysaan iyo baadayso waa in lagu talaala talaalkii ayaa markii SYS gud ay shireen ba waxa la yiraahday bilow ninkan hogaamiyaha ah sun lagu mud oo la dil markaas baa nin la yiraahdo Muure la soo diray oo la yiraahdo bax soo talaal meeshii lagu talaalay nin Talyaani ah baa jooga oo farmiyeeri ah laba nin oo SYL baa ka hoos shaqeeya oo qisada la socda mar alla markuu soo galay waxay ku yiraahdeen eko Abdullah Ciise si ay u marin alaabiyaan ninka Talyaaniga ila ma yaqaaneen Muureba yaahi khayr hasiye wuxuu u diyaar garoobay naftiisa Soomaalinimo inay u baxdo bal arinta bal eega iyo maanta iyo heerka aan taaganahay ma garatay marka walaalayaal qisooyinka faraha badan SYL halkan lagu soo koobi karo dhalinyarada marka maanta waxaan kula talinayaa inaad taariikhda dib u eegtaan Soomaali mustaqbalkeeda sidaan ma ahaan jirin Soomaali waligeed maanta ka hor mugdi ma aysan galin walaalayaal ha arkina waxa idin yaalee hadaad wax akhrin kartaan internetka gala Wikipedia waxay ahayd Google garee library tag akhri taariikh hufan oo sharaf leh baad leedahay dhaxal baa lagaaga tagay annaga ku ciyaarnaa dhaxal baa lagaaga tagay dhaxalkaagi maanta Ilaahay subhanahu wa ta'ala adiga ayuu ku makaniyay adiga laga rabaa inaad la timaadid at-tahriib oo badda ha ku dhiman adeero banaanka ha u bixin wadankani hadaad adiga sameeynin cid ku iimaanaysa malaha askariga ka yimid maxay ahayd 200 kilomitir halkan jooga dawladda ku soo dirtay wiilkeedu dhiigiisa inuu ku baxo halka ku baxo uma soo dirin inuu adiga ku badbaadiyo dantiisa gaarka oo u soo dirtay warma inta baan garan weyn Ilaahay ku dhaafay ما أنت عن جروين إن ويل هالك كنت أنت وكيم من معايا بوروندي أما يوغندا أما إثيوبيا أما كينيا إنه سبودي مني إن الصومال إنه بودي مناي يعني personal interest جين إنه بودي مناي ما أنت عن جروين نفتري مر بيجويسا نفتري مر بيجويسا مركا حقوق الله الشرف حقوق الله هذا وضعك الدفاع عليا حقوق الله هذيك مستقبل قريب adiga waxaan soo gaaray waragila mid halkan ay soo gaareen inta iskuulka subaxii aroortii u baxo tobanka subaxnimo ka soo baxo quraac guriga u soo doonto aan soo laabto oo aanan isbaara ka baqin oo waxna ka baqin 10,000 oo arday oo maxay ahayd ninkiiba 12 maadood buugaag la siinayo wax walba ay free noo yihiin ma aanan ogeyn sharafta aan leenahay dawladnimadii waa burburinay inta la dagaalamay
intiina halkan ila joogta iyo inta badda ku dhimatay oo fara badan waxay wax ku soo barteen isbaaro iyadoo hooyadii aabihii sida ay lacagta ku keenayaan aan la garanaynin oo dib iyo saxariir ay $10 $20 tuushinkiga ku bixinayaan oo ay u sii dheer tahay walwal iyo walbahaar kii ama tii nabad ma ku soo noqonaysaa waxaan idin weydiinaa ilaah baan idinku dhaarsheeyey dhibkaas aad soo marteen carruurtiina ma rabtaan inaad u reebtaan carruurtiina ma rabtaan inaad u reebtaan mise waxaa rabtaa xulgaagii oo gurigiisa iyo baabuur ka qaado oo nabad ku soo noqdo adna aadan ka walwalin waxa weeyaan wax aan loo shaqayn lama dheefsado waa in loo shaqeeyaa waxaan rabaa marka hadalkooda waan dheereeyey laba arrimood kooban inaan kusoo inaan idin xusuusiyo soomaalinimada maanta heerka ay taagan tahay waxaan ka soo bilaabayaa 15 May 15 May shalay anigu meel baan la taliye ka ahay wasaaraddii akala taliyaha ka ah waa laga shaqaynayay waxaan ka wadaa dowladdii Soomaaliyeed yacni oo hadda maanta noo joogtay maalintan maamuuskeeda ma ay siinin shalay dariiqyaal la furayay oo waxqabad dowlad baa laga sheekeynayay ma aha in waxqabad dowlad laga sheekeeye waa in mujtamaca la xusuusiyaa 13 haliyey oo god noogu jira annaga maanta raggooda maxay ahayd in la xusuusiyo oo taariikhdeena dahabka ah meeshay kaga jiraan bulshada loo sheegay miyaan ahayn marka waxa weeyaan waxaa jirta marka dhibaatada haysata oo hoggaanka maanta mid walba hogaamiyo Soomaaliya ay haysto waxa kamid ah balaan Hargeysa ka soo bilaabo Kismaayo ku tago Hargeysa waxa looga dabaaldegi doonaa 18 May macnaheedu ay tahay wax kacaan shakhsiyaad ay suubiyeen aan ahayn gumaysan la dirin loogama dabaaldego 26 Juun dhalinyarada meesha joogta maanta ma yaqaanaan macnaha 26 Juun markaad soo baxdo Puntland timaadeen كل قليلات الجوجا كودا أغسطس ويا قانا سكعب ويا قانا لكن شيء تبقى ماي كودا لوليو لحنا تفجر مدنا ما يقانا حمر والله من كسمايا والله من بيدا والله من مركب الله هي تاريخ لنا الذهب كا هدي أنا مرة نوص بيني إن أنا كحسوس النوم سيدا حسب قدرت يا صحابة كلمات الجوجا سكون سكار لنا نسمع مسنا وأقول إنك بلاونا والدين وحقرت لنا عروضة وشكاية تاريخ ذاك سوى دنياته يوم هذا كرامته أي قلبه وصوك الشوق سي أي وده كان يليه يبقى قادان ما هنو حركه وحلا بينا يوم أو إلى هذا يوم حائق قلق ما قرأتي تابع يا دكتور دردار ميا مركب هاربا مرحلة كلامور بكتيرنا ورقلا فرق بدل بحال بقوة مرة مركب كل إن كوض الشيء وحاربا إلى هذا لبا أهرب مهمة ما نيجي دليرة هذا هرتي جوجي وحده إفيي مهمة الإعلان هاي مستقبل كدليرة والله ما كوني لما يتوقع كي دورة شديد لحظة ما نيجي دولة إيوه هي بلقادة مثل أنا يقول أو يقول أنتاي إن لهلا one man one vote مركب وايد عادي عندنا 4.5 على مصنوعي مركب دولة دي هذا واي فيل جرودي هذا هو حير روائنا يصير نقدان مركب غلط كاسي محكومة إسكال مسوا واحد لو ذليه تامر كان روائنا وده فيه حكومة ما يا إسكال مسوا لو ذليه أنا وحنا قضاء ولا جود ذليه صوبته حديث كرسول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغير بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أنه دولة مركي أي وحدا يسوع وزيرده أي شعبده كل سنة يعني وأنا أسعى بالنابل شاهان وعاد رهنا ورنيكي فارح قولنا وزير كمالية ده لقى ويوكشي وزير كي هم الأمير هم لقى ويوكشي برشدي برالكا برشدي يا رالكا مركب فشل كحاجة كتيرة هذا لقى ديدرين وأن كعدون لأرك الشعب وأن ليس أبابرين وأن لا حساب تمن وهويان تم كانوا مسيسوا عليها مركب غلط كانوا غلط لو ذليه برلمان كابو زهري برلمان كشري قضية بسوقنا كنت بقول لما بقول you name it بال يا اللي بال لقوا بحي اللي بان كل عقد اللي قصوا بحي مر الله مركوي ما البرلمان كا شغله هو رئيس القبر يروح ويان سي والعقد وكرسي وكوي بسدي وأهل مركب مستقبل كيجي كاجا كاني ماشي بقوله ما قرأتي مركب وحنا ذكرنا إن أنهلنا برلمان أن الكرة تجرين كريم برلمان دستور كقرء قاضي برلمان لا حساب تبع حكومته برلمان إيران مدح وين الجو رئيس وزراء وحى سمير اسم موافق سنة شروع له وأن لعقت الشعب كمساكين تعزور تلقى قاضي لقى صوح هذا اللي بقول ربط كرينه أسكر راله هو وسطوه وحنا ذكرنا مركب نسيب دروا 4.5 فهاته نقول بودعي سوايا قانا
نولبا ودقيسو يقانا باشو كي ولا يقانا باشي ريق ورحايد باشي ريق صحايدبا هو يقانا وحاد ذكرها xildhibaanka halka soo fadhiyay ilaa ay cartay ujeedada uu u fadhiyay waa dantiisa gaarka ah ee dan guud ma fadhinin marka waxa la joogaa waqtigii la xisaabtami jiray madaxda waqtigii la xisaabtami jiray xildhibaanka shalay haduu ku xumaaday waqtiga lama jiro kun maanta lagu siiya bari bay baaysa bari bay ka lumaysa si aanay u lumin maxay ahayd kaaga baabin waxa ka rabnaa marka inaad maxay ahayd aad ku dadaashaan oo aad maxay ahayd iska dhicisaan بالك وحنا رأينا كوسو جبجبيو تحية أو ملك أنا كنت قرطي يقول الرأي هذا ما يجيني حد كلا واحد بدل في عنه هكذا عن كشة جمد جبته هكذا ما أنا سوق قرب أنا سوق حصده سومالي ويني ولا ليال وحوذا قبته وذاك سومالي ويني ولا ليال وحوذا قبته وذاك هيلي هذا وذاك وهكذا الرواية إلى المشهد كحصو إن صاحبنا يتحفي عن يسوتري نسيب دروا ماشي ويكسر بحال هذا وقت كانوا هيا وحان سمينا يا مركا I rest my case وحان إذا كورة دار ما يالله كعبسي يحب الوطن وطن كان إنا جعلانه لما يرى التهريمي لحال كانوا وحالك ما قرأتي ماشي أصعدا وحال الوقت لك لقينا العيل قادتي وقاد شقيسيد وقاد حالك كوريكتي وعرورت هذا كل شيء عرورت هذا نقدان عرور قال لا هاي وأن سومالي ما أقول وحان آدي هذا مفرح سنة